marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeedii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabayaa baa layidhi qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir maaha min albidaaya ila annihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hor taallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamaci iyo jamaacaddii masjidku ku ilaalinayaa laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaada intuu la yimidana ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinayaa baa layidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinuu biالصabri والsalaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cedeedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaaraa loo jideeyey istaciinuu biالصabri والsalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaaddii nebigeenna calayh salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya alaa adduunka waxa yaalla saddexba aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey adiibu waxa wixii udugay udgoon waannisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wajucilat quratu cayni fi الsalaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaadaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaadaasay barteen iyagu inay salaadda ku raaxaystaan in salaaddu ay u noqoto meel markay salaadda ay xidhaan adduunyadaba ay ka tegaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaadda xidho haabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay si aad ku hesha adigu salaadan mar alle markuu salaadda tukanay lilmadaa ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli الsalaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buui u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buuhi salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu idhi niman yaho anu safka markaan gala buu idhi imaamka aan gadaashiisa istaagin salaadda xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu idhi salaadda inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud اllaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayno ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu idhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaadda dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo layidhi ilaahay baa kuu yeedhay xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaaddu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaaddeeda ku dhammaystaa buu yidhi aye ra'iislii ninkuna dareenka ku dhammaysataa masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa wa ama in kaana min almukadibiina adaalliin masaajidka o dhan baa yidhi aamiin waa rakacaddii labaad salaat alcishaa anna waan ku jiraa safka hore salaaddii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labaad halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo waan la bilownin midh annagu alla waa ku darra
laa ilaaha ila allah